waa Cimraan Khan oo bilowga isbuucan laga soo xiray gurigiisa loona dhaadhiciyay jeelka. Tanina waa warqad sir ah oo ay baahiyeen warbaahinta Pakistan iyo tan Mareykanka oo uu ku xusan yahay heshiis qarsoodi ah oo uu Mareykanku garwadeen ka ahaa, yoolkiisuna ahaa in xilka laga xayuubiyo Cimraan Khan haddii la fulin waayana lagu godiyey in Pakistan go'doon laga gelin doono adduunka intiisa kale. Cimraan Khan ayaa hadda wajahaya jeel 5 sano ah iyo xayiraad looga fogeynayo saaxadda siyaasadeed 5 sano oo soo socota. Hadafka ugu weyn waa in laga hor istaago doorashada dhici doonta bisha 11aad ee nagu soo aadan oo la tuhmayo inuu noqon karo xisbigiisu kan ku guuleysanaya doorashadaasi. haddaba maxaa ka socda dalka Pakistan? maxaa ku xusan warqadan qarsoodida ah eedaha laga fayday? maxay yihiin eedeymaha hadda loo haysto ee lagu xiray? maxayse yihiin hadiyadaha lagu eedeynayo Cimraan Khan inuu iibiyey? dhammaan weydiimahan ayaynu ku lafaguri doonaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waabari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. wargeyska The Intercept ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa maqaal dheer oo uu daabacay ku soo bandhigay warqad sir ah oo laga diiwaan geliyey shir qarsoodi ah oo ay wada yeesheen safiirka Pakistan u fadhiya dalka Mareykanka iyo 2 sarkaal oo ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. shirkan oo qabsoomay 7 bishii 3aad 2022 ayay saraakiishan ku booriyeen safiirka Pakistan inuu kala shaqeeyo sidii xilka looga xayuubin lahaa Cimraan Khan, iyaga oo u ballan qaaday in haddii ay ku guuleystaan uu Mareykanku la samaysanayo Pakistaanida xiriir ka qoto dheer kii uu markaasi la lahaa. haddii ay ku guuldareystaan inay ka adkaadaan Cimraan Khan, ayay ugu goodiyeen inay ka go'doomin doonaan siyaasadda caalamiga ah kana dhigi doonaan dalkaasi dal xayndaab kaga jira adduunka intiisa kale. dabcan safiirka Pakistan markii uu dhammaaday shirkani, warqadan oo ay ku xusan yihiin wadahadalladii dhex maray 2 sarkaal ayuu la wadaagay xukuumadda Pakistan oo uu ugu horeeyo Cimraan Khan. waana marka uu bilaabay Cimraan Khan inuu ka soo muuqdo fagaarayaasha dalkaasi isaga oo dadka u sheegaya in xukuumaddiisa cadaadis lagu saarayo sidii ay kursiga u bannayn lahayd. Mareykankuna uu dagaal toos ah ku hayo madax bannaanida Pakistan. qeyladhaanta Cimraan Khan waxba ma soo kordhin oo bil uun kadib markii uu qabsoomay shirkan, wuxuu baarlamaanka dalkaasi si aqlabiyad leh kalsoonidii ugala noqday xukuumaddii Cimraan Khan, taasoo ka dhigtay Khan mid u jihaysta in isaga iyo taageerayaashiisuba ay dagaal toos ah ku furaan ciidanka dalkaasi oo uu ku tuhmay inay ka dambeeyeen xilka xayuubintii lagu sameeyey iyaga oo amar ka qaadanaya Mareykanka. sabtidii aynu soo dhaafnay ayay Bakistaaniyiintu ku warheleen iyada oo Cimraan Khan ay waran u jartay maxkamadda darajada 1aad ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee Islaamabad. maxkamadan ayaa ku xukuntay 3 sano oo jeel ah iyo in laga xayiro qabashada shaqo siyaasadeed 5 sano ee soo socota. kiiska dacwadan oo socday 14 bilood ayaa eedaynta ugu weyn ee ay u soo jeediyeen ahayd inuu iibiyey oo uu ka macaashay hadiyado ay u hadiyadeeyeen madaxda dalal uu booqasho ugu tegay intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2022 oo uu ahaa ra'iisul wasaaraha Pakistan. hay-adda doorashooyinka dalkaasi oo furtay galkan dacwadeed ayaa ku qiimaysay in hadiyadahan ay qiime ahaan gaarayaan $635,000 waxayna isugu jiraan saacado iyo fargallo qaali ah. dalka Pakistan iyo dhammaan dalalka adduunka oo idilba waxaa mamnuuc ah inuu adeegsado ama iibiyo mas'uul dawladeed hadiyad loo hadiyadeeyey inta uu jagadaasi joogo, waxaana Pakistan mas'uul kasta inta uu xilka hayo hadiyadaha uu helo uu ku khasban yahay inuu geeyo dhismahan oo loo yaqaano keydka Toshakhana oo ah keyd u gaar ah oo lagu kaydiyo hadiyadaha madaxda dalkaasi ay helaan. markii lagu dhawaaqay xukunkan, booliiska dalkaasi ayaa lagu amray 15 daqiiqo gudahood inay ku soo xiraan Khan, waxaana warbaahinta qabsaday muuqaalada Cimraan Khan oo ay gelbinayaan booliiskii loo diray inay soo xiraan si ay jeelka u geeyaan. waxaana lagu xiray jeel la yiraahdo Adiyaala oo ku yaala koonfurta magaalada caasimadda ah ee Islaamabad. kiiska hadiyadahan maahan kiiska keliya ee uu wajahayo Cimraan Khan, balse waxa sidoo kale lagu soo oogay in ka badan 170 kiis oo isugu jira dilal, musuqmaasuq iyo eedeymo la xiriira ku tagrifal awoodeed. waxayna bilaabatay maxkamadayntiisu bartamaha sanadkii hore
xukunka maxkamaddan ayaan ahayn kama dambays waxaana u furan Cimraan Khan inuu racfaan ka qaato oo uu horgeeyo kiiskiisa maxkamadda sare ee dalkaasi. Cimraan Khan ayaa ka mid ahaa madaxdii ugu cadcadayd uguna go'aamada adkayd madaxda muslimiinta 4 sano ee la soo dhaafay. Wuxuu qaaday tallaabooyin ka dhigtay dalal badan kuwa cadaawad qaawan u qaada ilaa markii dambe ay ku guulaysteen inay xilka ka xayuubiyaan. Arrinta ugu weyn ee soo dedejisay in xilka laga xayuubiyo Cimraan Khan ayaana ahayd booqashadii uu ku tegay dalka Ruushka markii uu bilowga ahaa dagaalkii Ukraine, taasi oo ka dhigtay Maraykanka mid cadaadis ku saarta Bakistaaniyiinta inay xilka ka qaadaan Cimraan Khan. Kiisaskan ayuu Cimraan Khan ku tilmaamay inay yihiin kuwo lagu bartilmaameedsanayo laguna dilayo magaciisa si looga saaro saaxadda siyaasadeed ee dalkaasi, gaar ahaanna doorashada la filayo inay ka dhacdo Bakistaan bisha 11aad ee inagu soo aadan oo uu yahay Cimraan Khan siyaasiga ugu cadcad ee la saadaalinayo inuu ku guulaysto doorashadaasi. maxaa yeelay sidaynu soo sheegnay xukunkan ayaa ka mamnuucaya inuu galo wax doorasho ah ama uu qabto shaqo siyaasadeed 5 sano ee soo socota, taasi oo ka dhigan inuusan ka qaybgeli karin si gebiyahaana doorashada dhammaadka sanadkan dhacaysa. Cimraan Khan oo sii ogaa in go'aanka maxkamaddu uu noqon doono in la soo xiro ayaa sii duubay muuqaal kooban oo uu fariin ugu diray taageerayaashiisa akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshadu ku xiriirto. ayuu ku faafiyey muuqaalkan daqiiqada uun ka hor inta aan la xirin, wuxuuna isugu yeeray taageerayaashiisa inay isugu soo baxaan fagaarayaasha u muujiyaanna garab istaag. Cimraan Khan ayaa tan iyo markii xilka laga qaaday dagaal toos ah ku furay ciidamada dalka Bakistaan. Ciidamadu waxay ku dhex leeyihiin awood gaarsiisan in siyaasigii ka hor yimaada ay ka saari karaan saaxadda siyaasadeed ee dalkaasi, waxayna u shaqeeyaan sida dawlad ka barbar dhisan dawladda shacabku doorto ee xilka haysa. dalkaasi ayaa tan iyo muddo sannad ah ku jiray kala qaybsanaan baaxad weyn. Cimraan Khan ayaa ka badbaaday isku dayo lagu rabay in lagu khaarijiyo. Isku dayadaasi ka horna taageerayaashiisa ayaa ka caraysnaa xilka qaadidii lagu sameeyey oo sidaynu soo sheegnay ay aaminsan yihiin in ciidanka oo fulinaya rabitaanka Maraykanka ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaarahoodii, taasoo keentay in dalkaasi uu galo qalalaase siyaasadeed. Waddooyinka magaalooyinka waaweynna ay buux dhaafiyaan dadyow caraysan oo dhigaya mudaharaadyo rabshado wata. waxaa dabkan baasiin ku sii shiday markii booliiska dalkaasi ay bishii 5aad ee aynu soo dhaafnay maxkamadda sare dhexdeeda ku xireen Cimraan Khan kadib markii la soo saaray waran lagu xirayo. taageerayaashiisa oo ka caraysan xarigan ayaa buux dhaafiyey waddooyinka, gubayna xarumihii iyo saldhigyadii ciidanka, taasoo ka dhigtay xukuumaddii dalkaasi mid in badan oo ka mid ah dadkan u taxaabta jeelka. xisbiga Cimraan Khan ee loo yaqaano Insaaf ayaa u arka jeelka hogaamiyahooda inuu yahay argoosi ay ciidanku uga argoosanayaan Cimraan Khan, rabaanna inay uga fogeeyaan saaxadda siyaasadeed ee dalkaasi, iyagoo ku eedeeyey in maxkamadda soo saartay go'aankan ay ahayd mid u janjeerta hal dhinac kana fogeyd cadaaladda. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadeed ee Bakistaan ayaa u arka tallaabadan inay tahay mid lagu kala dhantaalayo awoodda iyo haybadda uu Khan ku dhex leeyahay taageerayaashiisa.